Tan iyo markii uu curtay Islaamka waxaa si isdaba joog ah u soo baxayay hogaamiyeyaal iyo rag ku xardhay magacooda baalasha taariikhda, kuwaasoo sabab u ahaa Ilaahay ka sokow kor u qaadida diinteena suuban iyo fidinteedaba. Waxaana ka mid ahaa halyeeyadaasi Salaaxuddiin Al-Ayyuubi. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalka maanta. Waxaan kaga warbixinaynaa hogaamiyihii furtay Qudus, aas-aasihii dowladdii Ayyuubiyiinta. Magaceyguna waa Ibraahim Garaad. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Salaaxuddiin Al-Ayyuubi wuxuu sanadii 532 Hijriga ku dhashay deegaanka Tigriid ee dalka Ciraaq. Aabihiisa Najmudiin Ayyuub waxa uu ahaa gudoomiyaha magaalada ay ku noolaayeen. Waxaana la sheegaa in Salaaxuddiin hooyadii iyo aabihii sheekada guurkooda aad cajiib u ahayd. Waxaana la soo wariyay in Salaaxuddiin aabihii uu mar waliba oran jiray inuu rabo inuu guursado gabar u dhasha wiil Ilaahay sabab uga dhigo inuu furto Baytul Maqdis. Waxaana la sheegaa in maalin isagoo jooga qasriga khaliifka oo si kaliisa ku maqlay hadal dhex marayay khaliifkii hogaaminayay dowladda iyo gabar joogtay qasriga. Waxaana khaliifka gabadha uu soo jeediyay inay guursato mid ka mid ah ragkii ka ag dhawaa. Gabadhii ayaase ugu jawaabtay khaliifka, waxaan rabaa in aan guursado nin alla ka cabsi badan oo aan u dhalo wiil Ilaahay sabab uga dhigo inuu furto Baytul Maqdis. Markii uu maqlay Salaaxuddiin aabihii oorahda gabadhan, wuxuu ka dalbaday khaliifkii inuu u guuriyo. Waxaana sidaasi ku midoobay qoys raba inay soo saaraan halyeeygii furan lahaa Baytul Maqdis. Salaaxuddiin waxa uu ku barbaaray magaalada Dimashq, wuxuuna ka ag dhawaa qasrigii hogaamiyihii wanaagsanaa ee Nuruddin Zeng. Halkaas ayuuna ku bartay aqoonta diinta, si wacanna uga dhigtay xisaabta iyo fardafulnimada. Wuxuu boqorkii Nuruddin uu ku soo daray Salaaxuddiin isagoo 26 jir ah, ciidan uu hogaaminayay adeerkiisii Asaduddin Sharko. Waxaana loo diray in ay la dagaalamaan dowladdii Faadimiyiinta ee ka tilin jirtay dhulkii Masar. Waxayna qabsadeen ciidankii uu hogaaminayay Asaduddin Sharko dhul badan, laakiin Salaaxuddiin dagaalkaasi saameyn weyn oo la xuso kuma uusan lahayn. Muddo kadib adeerkii waa uu dhintay, waxa uuna ku guuleystay Salaaxuddiin duminta dowladdii Faadimiyiinta kadib markii ay talinaysay 262 sannadood. Salaaxuddiin waxa uu kasbaday jaceylka muslimiin badan, waxa uuna ku guuleystay in uu ka tirtiro dalka Masar fikirkii Shiiciga ahaa ee dalka Masar ku xididaystay. Laakiin waxaa dhacday in sanadkii 569 Hijriga uu geeriyooday Nuruddin Zeng oo ahaa khaliifkii ka talinayay dhulkii Shaam. Wuxuuna markaasi Salaaxuddiin u jihaystay dhulkii Shaam si uu u mideeyo ummadda Islaamka, uuna ula soo dagaalamo kacdoona ka bilowday dhulkii Shaam. Markii uu tagay Shaam, wuxuu awood u yeeshay Salaaxuddiin inuu ku soo daro dhulkii Shaam magaalooyinka Dimashq, Ximis iyo Xalab. Wuxuuna sidaasi ku noqday suldaankii Masar, Shaam iyo Xijaas. Kadibna wuxuu dib ugu soo rogaal celiyay Masar si uu u sii dhammaystiro isbedeladii uu ka waday gudaha Masar. Salaaxuddiin waxa uu ahaa hogaamiye ku suntan jaceylkiisa xad-dhaafka ah ee uu qabo jihaadka. Wuxuuna dhisay ciidan awood badan oo aan loo babaxdhigi karin. Wuxuuna u soo jihaystay inuu la dagaalamo gaaladii ka talin jirtay Masjidul Aqsa. Wuxuuna Salaaxuddiin awood u yeeshay sanadii 583 in uu qabsado badanaaba magaalooyinkii ay ka talin jirtay boqortooyadii Kiristaanka ahayd ee fadhigeedu uu ahaa Baytul Maqdis, isagoo ka qabsaday magaalooyinka Akka, Saydaan, Yaafa, Qaysariya, Casqalaan iyo Bayruud. Waxaana ugu caansanaa dagaaladii uu galay Salaaxuddiin dagaalkii Xidiin, isagoo u dhigay cashir lama iloobaana Saliibiyiintii. Wuxuuna go'doomiyay Salaaxuddiin magaalada Qudus, wuxuuna gudaha u galay magaalada Qudus 27 Rajab sanadii 583 Hijri ah. Waxaana maalintaasi soo idlaatay ku dhawaad 90 sano oo ay ka talinayeen Saliibiyiinta magaalada Qudus. Waxaana qabsashadii ay muslimiinta qabsadeen magaalada Qudus ka carooday boqoradii reer Yurub oo duulaan ku soo qaaday Salaaxuddiin, asagoo ku jabiyay dhammaan dagaaladii ay soo qaadeen. Waxayna markaas la galeen heshiis. Salaaxuddiin markii uu ka saaray dadkii Saliibiyiinta iyo ciidankoodii magaalada Qudus ma uu laanin ee waxa uu ku amray in ay iska bixiyaan madax furasho iskagana baxaan magaalada. Qofkii aan iska bixin karin madax furashadaasna uu asaga khasnadiisa gaarka ah uga bixinayay. Salaaxuddiin Ilaahay ha u naxariistay waxa uu geeriyooday sanadii 593 miilaadiga. Waxaana la sheegaa markii uu dhintay Salaaxuddiin in reerkiisu ay ka waayeen qasnadiisa xataa lacag ay ku aasaan. Salaaxuddiin oo markaa ahaa suldaankii Shaam iyo Masar
lagana waayay qasnadiisii lacag lagu aaso bal suureyso daawada qiimaha hogaamiyahan. daawade wax ugu horeeya oo aan ka faa'iideyno qisadani inay tahay inay lacag hami kasta iyo higsi kasta oo aad leedahay ay ka hor istaagi karin haddii ay adigu ka go'an tahay waxaa si ka gulgaaridooda. waxayna lacagtu qiimo leedahay marka aad adduun raadis tahay ee haddii aad aakhiro doon tahay lacagtu agtaada qiimo saasa kuma lahan daawade. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.